السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan sii socon doonaa qaybteennii afraad waxaan qaybteennii shanaad ee cardiovascular drugska waxaan soo dhiganay ahayd labadii ee ugu horeeyay oo ay ahaayeen ACEI-ga iyo ARB-ga. sidoo kale waxaan soo dhiganay BD oo ahayd kooxdii la oran jiray beta blockerska. waxaan soo dhiganay kooxdeennii koobaad ee C-da oo ahayd calcium channel blockerska. waxaan bilaabi doonaa kooxdeennii labaad ee C-da hoos imanaysay oo loo yaqaano central actin drugs ama central actin agent. dawooyinkan central actin symptolytic drugs ama central actin agentiga waxaa kamid ah ama class memberskooga labada dawo ee caanka ah ee loo yaqaano metildopa iyo clonidine. metildopa iyo clonidine baa kamid ah labada dawo oo loo isticmaali karo dhiigkarka. indication-kooga maxaa kamid ah? indication-kooga waxaa kamid ah hypertension with renal disease. qofka haddii uu dhiigkar leeyahay keliyahana dhibaato ay ka jirto ama keliya xanuun qabo dawooyin loo isticmaali karo. resistance hypertension haddii blood pressure-ku ku degi waayo dawooyinka kale oo ay noqoto mid uu qofku ku caafimaadi waayo dawooyinka kale ayaa waxaa loo yaqaanaa resistance hypertension. dhiigkarka iska caabinta keena ee dawooyinka kale qofku ku caafimaadi waayo ayaa loo siin karaa. sidoo kale waxaa loo siin karaa hypertension in pregnancy. haweeneyda xaamilada ah ama haweeneyda uurka leh hypertension ama dhiigkarka dumarka ayaa loo siin karaa. gaar ahaan dawadan loo yaqaano metildopa ayaa loo qaadan karaa. sidoo kale side effect-ga dawooyinkani ay keeni karaan waa maxay? gaar ahaan clonidine markaanu nimaadno marka uu qofku si lama filaana sudden withdrawal of clonidine can lead to a rebound hypertension. haddii si lama filaana qofka isaga oo qaadanaya dawadan clonidine una qaadanaya dhiigkar uu joojiyo waxaa dhacaya in dhiigkarkaasi mar kale uu kusoo boodo ama rebound dib ugu soo laabto ayaa wax loo yaqaanaa rebound hypertension. sidoo kale metildopa side effect-geedu ma badna. mechanism of action-ka dawooyinkan aan soo xusnay ay leeyihiin waa maxay? they diminish the central nervous system sympathetic activity which decrease the heart rate. dawooyinkani waxay hoos u dhigaan qaybta firfircoonida ee maskaxda ama sympathetic nervous system-ka shaqadooda ayaabay hoos u dhigtaa. sida caadiga ah sympathetic iyo nervous system-ka ama central nervous system-ka si guud nervous system-ka laba loo qaybin jiray. waxaana loo qaybin jiray central nervous system iyo peripheral nervous system. peripheral nervous system-ku waa nerfiyada ama dareenwadka ku yaala qaybaha jirka marka laga yimaado maskaxda iyo sidoo kale lafdhabarta ama waxa loo yaqaano taxaxangulaha. sidoo kale central nervous system-na waxa la yiraahdaa labada qaybood ee ay ka mid ka yihiin maskaxda iyo sidoo kale taxaxangulaha ama lafdhabartaas dareenwadka ku taxaaran baa central nervous system la isku yiraahdo. dareenwadkaasi markaa wuxuu leeyahay qayb jirkeena u qaabilsan in ay activity-geena iyo shaqada jirkeena ay kor u qaado oo loo yaqaano sympathetic. qayb iyadna sidoo kale waxay leedahay activity-ga ama shaqooyinka faraha badan leh ee jirkeena iyo activity-ga uu jirkeenu qaabanayo mid hoos u dhigta taasoo loo yaqaano parasympathetic. marka dawooyinkani waxay hoos u dhigayaan qaybta firfircoonida ama qaybta activity-ga faraha badan leh inuu jirkeenu qabto shaqada ku leh ee loo yaqaano sympathetic nervous system-ka taasoo ay sababayaan markay hoos u dhigto in qaraaca wadnuhu hoos u dhaco. qaraaca wadnuhu waa mid ka mid ah shaqooyinkeena dabiiciga ah ee uu jirkeenu qabto. sympathetic nervous system-kuna qaraaca wadnuhu inuu saayido bay sababaan meesha parasympathetic nervous system-ku uu sababa in qaraaca wadnuhu hoos u dhaco. markasta waxaad ogaanaysaa qaraaca wadnuhu haddii uu hoos u dhaco blood pressure-kuna inuu hoos u dhacayo. marka dawooyinkani waxay sababayaan
they diminish waxay hoos u dhigayaan central nervous system sympathetic activity shaqada sympathetic activity-ga ayaabay hoos u dhigayaan kadibna it decreases waxay hoos u dhigi doontaa the heart rate qaraaca wadnihii baa yaraanaya on the other hand dhinaca kale marka laga eegana increase parasympathetic activity waxay sidoo kale hoos u dhigayaan kor u qaadayaan parasympathetic nervous system ka shaqada deganaanshaha qaybta maskaxda ka shaqeysa taasoo sababaysa reduced heart rate ama reduced heart rate qaraaca wadnuhu inuu hoos u dhaco ama uu yaraado sidoo kale blood pressure kuna uu hoos u dhaco marka dawooyinkani si guud qaraacii wadnahana way yareynayaan blood pressure kina waa ay yareynayaan cidda laga mamnuucay ama contraindicationska aanan qaadan karin waa maxay waa kow metildopa haddii uu qofku leeyahay liver problem ama active liver disease uu leeyahay oo beer xanuun uu leeyahay lama siin karo sidoo kale haddii uu qofku allergy ku leeyahay dawada metildopa marka la siiyo jirkiisu haddii uu cuncun flashin ama xaalado kale uu galayo allergic ah ama xasaasiyad ah lama siinayo metildopa on the other hand clonidine qofku haddii uu xasaasiyad ku qabo lama siinayo marka labadan dawo metildopa iyo clonidine ayaa waxay hoos tagaan central acting agent ama central acting drugs qaybteeni central acting agent una saasay ku dhantahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.